shir labadii maalin ee lasoo dhaafay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ugu soconayay madaxda dowlad goboleedyada oo xubinta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed. Qodobada laga soo saaray ayaa waxaa ku jira in la dardargeliyo dhanka amniga, dhaqaalaha, isdhexgalka bulshada iyo in doorashada dalka ay waqtigeedu ay ku dhacdo. Dhawaan ayaa guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka waxa ay sheegeen in doorasho qof iyo cod ah aysan ka dhici karin xilligan Soomaaliya, balse ay dhacayso doorasho ku dhacda waqtigeeda. Wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaana warbaahinta u aqriyay. Bismillahirrahmanirrahiim. Madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya oo ah madaxweynaha dowladda Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye, madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare, madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo madaxweynaha dowladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaan ayaa waxay shir madaxeed wada tashi ah isugu yimaadeen magaalada madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb. Shirka ayaa si rasmi ah u furmay 11 bisha Luulyo socdayna ilaa 12 Luulyo 2020. ugu horeyn shirku wuxuu uga mahadcelinayaa dowladda iyo shacabka Galmudug soo dhaweynta iyo martigelinta shirka wada tashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Madaxda dowladaha ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee dhinacyada siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo xoojinta geedi socodka dhismaha dowladnimada Soomaaliya. Dood iyo wada xaajood dheer oo shirku ka yeeshay arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka hay'adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ka soo baxay in la xoojiyo iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda, amniga iyo horumarinta dhaqaalaha. in doorashada waa qodobka labaad in doorashada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee 2020 ay ku dhacdo waqtigeedii aysan imaan wax muddo kordhin xilaad ah. 3 sida ay sheegtay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka kama dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod ah oo waqtigeedu ku dhacda. sidaa darteed waa in tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalku ay noqoto mid taladeeda loo dhan yahay, nooc ahaanna ku dhici karta muddo xileedka harsan. Shirku wuxuu ku baaqayaa in madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalku ay shir wada tashi ah isugu yimaadaan si ay uga wada arrinsadaan tubta farsamo ee qabsoomidda doorashooyinka dalka ee doorashada dalka ee 2020-2021. Shirku wuxuu ku baaqayaa in shirka wada tashiga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Shirku wuxuu u mahadcelinayaa taageerada beesha caalamku u mahadcelinayaa taageeradeeda ay la garab taagan tahay dhismaha dowladnimada Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, arrinkan ayaa waxaa soo dhaweeyay mucaaradka ka soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya oo horey shaki u geliyay in ay doorashada waqtigeedu ay dhici karto, maadaama mucaaradka ay horey u sheegeen in doorashada aysan u muuqan in ay waqtigeedu ay dhacdo. Shacabka Soomaaliyeed ayaa qayb ka ah dadka indhaha ku hayay shirka ka soconaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, kaasoo uga soconaya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Ismaaciil Abuukar Kasmaar Group, Muqdisho.